السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalay gabarna asxaabteeda qaaliga soo dhawaada isku soo noqdo wanaagsan alxamdulillah. maanta waxaa sameysanaynaa cunada loogu talagalay ilmaha markay 6 bilood gaaraan oo caafimaadkana u leh koriinshahoodan uu wanaagsan yahay. way kala duwan tahay laakiin maanta waxaa horumarin doonaa inta ujeedin hal xabo baradho ah, karooto yani size-keeda adiga inta hadda arkaysiin ama wax yar ka dheer, iyo sidoo kale hal sacab ama hal gacan oo buuxdo oo bariis ah. intaas soo cabirna bariiska caadiga oo la cuno waaye. bariiska si gaar ah u soo dhaqay, karootada iyo baradhadana si gaar ah u soo dhaqay. kadibna waxaan sameynayaa waa isku darayaa biyo in ku filan ay isdheeysid intaas ku filan way ku bisleen kartaa ayaa ku darsanaysaa. intan waxaa saaranaysaa dabka sida caadiga ee loo kariyo, wax cusub aan ku madareysid. hadhow markii yani waa shiidan doonaa, waa arki doonaa markaan shiidaneynana looma baahno wax sokor ah ama wax saliid ah, intaba looma baahno, intaana nagu filan. waxa hadda aan ku darsanayaa waa caanaha sida caadiga ah ay u cabaan caruurta. ani waxaa isticmaalayaa Nonalak. caanooyinkaas loogu talagalay in loogu shubo ilmaha oo lagu shiido, maadaama waxaan ay mishaari ay noqonayaan wax jilciina loo baahan yahay. asxaabteedii waxaan soo dhaweynayaa asxaabta cusub ee nagu soo biirtay fiidiyoyaashii ugu dambeeyay ka gadaashood. waxaan leeyahay soo dhawaada. waxaan marinaa 2583. maasha Allah tabaaraka raxmaan, aad u mahadsantiin. soo dhawaada mar kale. sidoo kale waxaan ku soo shubtay caano kale ku soo darsaday maadaama uu ugu yaraaday caanihii hore. adeeg aan ka dareemay mishaarida inay adeeg ay tahay ama khudaartii aan shiiday inuu adeeg yahay. sida hadda ay ka arkaysiin cunuga markaan oo kale wuu qaadan karaa. marka korka fiirinaysid labaniyadu kale u egeysoma midabka labaniyada. marka diyaar hadda noo yahay. wax yar waxaa sugeynaa meel dhiganeynaa inta yarta uu nooga qandacayo oo xagala jeeda uu nooga qaboobayo. qabowna lama rabay xoogaa faradiir ama maxaa yiraahdaa diirimaad intuu ka yeelanayo ama uu ka noqonayo sugeynaa. hadda zaaid uu kulay daba laga soo dejiyay. kadib caagaas ay u jeedina uu isticmaali doonaa oo aan ku siisan doonaa canuga insha Allah. waxaa ku shubanaysa afkaas daboolku leeyahay, waa yani nidaam waaye. soo qaanda iyo cunuga intuu dhibi lahay afka dhaawac ka gaarsiin lahayd ama isku dili lahay. maasha aan naftarka afka aad way adag tahay in la ilaaliyo rabtaa, laakiin qaybtaas hoose ka jircan tahay. cunuga markaa siinaysid dalkhadam ugu dageynaysid adii wasla faan soo maahan. saahada aragtiin waa kaasa dalool yar ee leedahay oo ka soo baxay mishaarida soo ujeedin. waxaa heli doontaa meelaha loogu talagalay ama lagu iibiyo caruurta iyo agabyada caruurta loogu talagalay. ani waxaan ka soo iibiyay Mulki Baby Shop. ninkii u baahan meeshaas ka raadiyo ama goob kasta ku heli karaa. soo dhawaada.